dagaal kale oo adag ayaa bilaaban doona dhawaan xilli ciyaareedka cusub ee 2023-2024 horyaalka La Liga waxa uu noqon doonaa mid kale oo aad u xiiso badan. Kooxda kubadda cagta Barcelona waa difaacadayaasha horyaalka La Liga dalka Spain sanadkii ugu dambeeyay macna Xavi Hernandez ayaa koobkii la hooday. Hase yeeshee sanadkan kooxaha ka ciyaara horyaalka La Liga dalka Spain mid waliba waxay doonaysaa hanashada horyaalkan oo ah mid aad u xiiso badan. horyaalka La Liga waa uu ka duwanaan doona sanadihii hore waxaa ka soo muuqan doona ciyaartoy waaweyn waxaa saaxadda kubadda cagta horyaalka La Liga lagu weyn doona ama shaashadahooda lagu weyn doona ciyaartoy kale waaweyn kuwaas oo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ka baxay. Haddaba maxaa la filan karaa sanadkan? kooxda kubadda cagta Barcelona oo ka ciyaarta garoonka Nou Camp waa kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga dalka Spain. marka aad eegto dagaal adag ay kala kulmi doonaan kooxaha ay la xifaaltamaan sida Barcelona, marka aad eegto Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, Atletico Bilbao iyo kooxaha kale waaweyn sida Real Sociedad oo ay qayb ka tahay halgamayaasha ama tartamayaasha horyaalka La Liga dalka Spain. Barcelona sanadkan maxaa ka cusub? Barcelona saxiix waaweyn ay sameeyeen suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ay kala soo wareegeen kuwaas oo u arkaan in sanadkan ay yihiin kuwa ay ku dagaalami karaan. ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Barcelona ay soo qaadatay waxaa ka mid ah Ilkay Gundogan oo la leeyahay wali isdiiwaangelinta ciyaartooygan ayaa shaki ku jira waxaana macquul ah in ciyaartooyga lagu magacaabo Ilkay Gundogan ba isagoo aan u ciyaar horyaalka La Liga dalka Spain kooxda Barcelona oo isaga dhaqaaqo sabab la xiriira inaysan wali diiwaangelin ciyaartooyga lagu magacaabo Ilkay Gundogan. Nicola Gonzalez ayaa qayb ka ah ciyaartooyda ay la soo wareegtay kooxda kubadda cagta Barcelona si la mid ah Oriol Romeu ayaa qayb ka ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Barcelona sanadkan ka soo muuqan doona. haddii ciyaartooydaasi ay yihiin waxaa ka dhaqaaqay magacyo waaweyn waxaa ka mid ah Jordi Alba nin weyn oo saameyn ku lahaa kubadda cagta kooxda Barcelona si la mid ah Sergio Busquets oo ahaa kabtankii hogaaminayay kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dhinaciisa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ku baxay. ciyaartooy waaweyn ayaa sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona ay lumisay hase yeeshee macallin Xavi Hernandez waxa uu arkaa da'yartu uu haysto uu qayb ka yahay Gavi, Pedri iyo ciyaartooyda kale Ansu Fati uu qayb ka yahay inay yihiin kuwa dagaal adag uu ku gali doono xil ciyaareedkan. dhinaca kooxda Real Madrid aan eegno Real Madrid suuqa kala iibsiga ciyaartooyda dhinacooda waxay ku waayeen ciyaartooy waaweyn waxaase ku soo biiray kuwa kale oo u arkaan inay yihiin kuwa ay dagaal adag ku gali doonaan. waxaa ka mid ah Arda Güler oo da'yar ah u dhashay qaranka waddanka Turkiga si la mid ah waxaa ka mid ah ciyaartooyga lagu magacaabo Jude Bellingham oo ay kala soo wareegeen kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund oo ka ciyaarta horyaalka Bundesliga dalka Germany. ciyaartooy waaweyn ayaa ka dhaqaaqay Real waxaa ka mid ah Karim Benzema oo sanadkan ka soo muuqan doonin ahaana kabtankii hogaaminayay kooxda kubadda cagta Real Madrid. Atletico Madrid waa koox kale oo saameyn leh macallin Diego Simeone waxa uu doonayaa in sanadkan uu dagaal adag u galo hanashada horyaalka La Liga dalka Spain kaas oo 11 bishan Agoosto kuna beegan Khamiista habeenka Jimcada soo galayso ka bilaaban doona marka aad eegto garoomada horyaalka La Liga dalka Spain kooxoodu ay ku ciyaaraan. sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadihii hore horyaalka La Liga dalka Spain maxaa yeelay koox waliba oo ka ciyaarta horyaalka La Liga dalka Spain waxay doonaysaa inay kooxaha ugu awood badan sida Real Madrid iyo Barcelona ay kula dagaalamaan hanashada horyaalka La Liga dalka Spain. Sevilla oo ku guuleystay tartankii xiisaha badnaa ee UEFA Europa League sanadkii hore waxay qayb ka tahay sanadkan kooxaha dagaalka adag u gali doona hanashada horyaalka si la mid ah Atletico Bilbao waa koox kale oo saameyn leh kuwaas oo u dagaalami doona inay gacanta ku dhigaan horyaalka La Liga dalka Spain. isku soo wada dub Barcelona sanadkii hore iyaga qaaday Real Madrid sanadkii hore waa laga qaaday waxay doonayaan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo madaxweynahooduba ninka lagu magacaabo Florentino Perez in isbedel muuqda ay sanadkan ku sameeyaan maadaama sanadkii ugu dambeeyay kooxda ay sida aad ka xifaaltamaan ee Barcelona ay gacanta ku dhigtay horyaalka La Liga. Real Madrid iyo Barcelona marka laga soo tago kooxaha kale sida aad ka u dagaalamaya waxaa ka mid ah Atletico Madrid oo uu hogaamiyo Diego Simeone, Atletico Bilbao, Real Betis, Real Sociedad waa kooxaha ugu awood badan marka aad eegto levelka dhaxana kaga jira horyaalka La Liga dalka Spain. daawade sanadkan aad is leedahay xil ciyaareedka cusub ee 2023-2024 way ku guuleysan doontaa horyaalka La Liga dalka Spain. Barcelona iyo Real Madrid oo xifaaltanka horyaalkan uu ka dhaxeeya ayaa qaadi doona midkood mise kooxaha kale ee meel dhaxaadka ah ayaa markan labadoodaba kaga guuleysan doona horyaalka xiisaha badan ee La Liga dalka Spain.